balaaba haddii aad tagto magaalada Salalax ha ilaawin inaad booqato qabriga dunida ugu dheer. Salalax waa magaalo ka mid ah waddanka Cumaan, waana goob aad u qurux badan, balse dadka badankoodu waxay u tagaan magaaladan sidii ay u soo arki lahaayeen qabriga. haddaba aynu gudaha u gallo, waa mid ka mid ah taariikhda dunida ugu yaabka badan. sida ay idin arkaysaan waa hal qabri oo dhererkiisu yahay 30 mitir. sida la sheegayna waxa ku aasan nin aad u khayr badnaa oo Alle quraanka ku sheegay waana qoyskii wanaagga badnaa ee la odhan jiray reer Cimraan. waxaana ka dhalatay Maryama bintu Cimraan oo hooyo u ahayd nabigeena Ciise calayhi salaam. Cimraan waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan, waxaana uu geeriyooday ka hor intaanay dhalan inantiisa Maryama. kadibna waxay ku soo kortay guriga uu lahaa Nabiyullah Sakariya calayhi salaam. sida la sheegana Sakariya waxa uu qabay